وتأكد القشان يسوق الحلا marka la isku baxay قرحة كجري maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 12aad ee Galmudug ayaa u fadhiisatay dhageysiga dacwad loo haysto shabakad argagixiso isla markaana gudaha magaalada Gaalkacyo ka geysatay qaraxyo iyo dilal qorsheysan waxayna ka koobnaayeen 6 ruux waxayna kala ahaayeen qarax sameeye amniyaad iyo waliba ismiidaamiya balse 17 Abriil 2023 qarax ay la eegteen baabuur ay lahaayeen ururka lixaad guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed oo marayay wadada Jayga ee WFP ayaa fashiliyay dhagartoodii balse dhacdadaasi markii ay dhacday ayaa ciidamadu waxa u gacan galay mid kamida dhagar qabayaashii ka dambeeyay qaraxan halkaas oo ciidanka danab oo kaashanaya kuwa ammaanku ay soo afjareen koox u abaabulnayd laynta haldoorka gobolka Mudug Anas Cabduqaadir Cali Maxamuud oo magacyadiisa afgarashadu kala ahaayeen Salmaan Cabdullaahi iyo waliba Hanad waxa uu al-shabaab u qaabilsanaa farsamaynta qaraxyada iyo dilalka qorsheysan waxaana garsoorka hortiisa uu ka qirtay inuu gacantiisa ku dilay Allah u naxariistay marxuum Cabdi Aadan Siyaad Cabdidheere oo uu ku dilay salaadii maghrib kadib masaajidka Ramadaan ee ku yaala dhinaca maamulka Puntland ee magaalada Gaalkacyo sidoo kale waxa uu gacantiisa ku dilay Allah u naxariistay marxuum Cilmi Cali Guuleed oo ka tirsanaa hay'adda socdaalka waxaana lagu dilay masaajidka Maxamed Rasuulullaahi oo ku yaala dhinaca maamulka Puntland ee magaalada Gaalkacyo waxa kale uu qarax gaarigiisa uu ku xiray ku dhaawacmay dambi baare Gandhi Bombolo oo ku dhaawacmay qaraxaasi sidoo kale Aadan Mursal Maxamed oo magaca afgarashadiisu yahay Iido waxa uu al-shabaab u qaabilsanaa dilalka qorsheysan iyo tuurista baabaanooyinka waxa uu garsoorka hortiisa ka qirtay inuu bombo ku tuuray saldhigga booliska dhinaca maamulka Puntland ee magaalada Gaalkacyo waxa uu qirtay inuu dilay marxuum Allah u naxariistay Maxamed Cagabiyood Jaamac oo lagu khalday Cabdidheere waxa kale oo shabakada kamid ahaa Ibraahim Maxamed Cabdullaahi oo afgarashadiisu ahayd Jundullaahi kuna qornaa inuu ismiidaamiyo sidoo kale waxa kooxdan abaabulan kayd iyo waliba alaab soo iibiye u ahaa Maxamed Cabdi Yuusuf Hiraabe Maxamed Joornaal Cabdi Jaliil Shire Raage iyo Maxamed Maxamuud Baylood oo kooxdan u qaabilsanaa daabulidda iyo kala gudbinta xubnaha shabakadan maadaama ay ahaayeen darawallo u kala goosha magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada shabaabku ay ku sugan yihiin xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybteeda 12aad ayaa maxkamadda hor keentay 6 ruux oo ka koobnayd shabakadan iyo qalab isugu jiray direys ciidan bastoolado alaabta qaraxyada laga sameeyo jaakad qaraxa oo diyaarsan bambaanooyinka gacanta laga tuuro iyo miinooyinka nooca dhajiska ah ee baabuurta lagu dhajiyo gaashaanla sare Cabdullaahi Maxamed Muuse Kaysi xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 12aad ayaa maxkamadda ka codsaday in lagu fuliyo xeerarka ay ku soo eedeeyeen mudane gudoomiye garsoorayaal eedeysanayaasha waa shabakad isku xiran waana shabakad u diyaarsan inay qarboodad ka geysto dalka sidaas awgeed waxaan codsanaynaa aayadda 33aad iyo qodobada aan ku soo eedeen oo mid walba uu xusayay ciqaabteeda in lagu xukumo billahi tawfiiq sidoo kale xeerlaalinta ayaa maxkamadda hor keentay markhaatiyo dhaarin kadibna waxay ku markhaati fureen wixii ay ka ogaayeen kiiskan aadan waa kaxayna saldhigaan geynay waan la sheekaysanay waxaan ku niri adiga dhibaatadii way dhacday cid ku dhibaataynaysa ma jiraan wixii dhacay aan ka wada hadalno ablaastii wuxuu noo sheegay 2 nin inay la socdeen 2 ninna meel uu hadda u raadiyo uusan garanayn laakiin xaruntii hubkuna yaalay ayaguna ay isku tagayeen inuu nageynayo waan qaadnay baawur booliisku leeyahay gaaridana baan ka xaysanay wuxuu nageeyay magaalada meesha ugu dambaysa guri ku yaala wuxuu yiri gurigii waa kan hubbaana yaala la fiina yaala ku dilin anagana lagu dilaanay adiga shaqadaada maaha gurigii waa tagnay gurigu dushu ka xirnaa albaabka laga galo dushu ka xirnaa uu qafilnaa go'aan isla markii waxaan qaadanay gurigii inaan jabino markaan jabinay waxaan ugu tagnay ninkaas ismidaamiyaha oo markaas booday asoo qaawan ayuu wuxuu dhex galay meel jingad ah askari danabta oo nala socda markii qori ku qabtay uu soo qabtay hal qol baa meesha ku yaalay qolkii baan jabinay waxaan ugu tagnay qarax diyaarsan oo nooc walba iskugu jira mid baabuurta lagu dhajiyo iyo mid dhulka lagu xabaalo waxaas oo dhan oo diyaarsan ayaan ugu tagnay iyo 2 bastooladood
iyo 5 bumba miyahay 6 waxaan ma garanayo hadda ma xasuusan karo oo kuwa gacanta laga tuuro ah ayaan ugu tagnay dhinaca kale qaranada difaacay eedeysanayaasha ayaa iyaguna maxkamadda horteeda ka difaacay eedeysanayaasha mudane gudoomiye garsoorayaal marka waxaan rabnaa bal inta aan loo gudbin gabagabada xeer ilaalinta 434 intee qof ku eedeysan su'aashan iyo su'aalahan dib u dhiganayay kamid ahaayeen kow intee qof baa ku eedeysan 434 labo dadkan kale qodobaday ku eedeysan yihiin ilaa ninka gaariga darawalka u ahaa iyo ninka alaabta lahaa isku mid maaha waa kala duwan yihiin mid walba qodobkiisa gaarka ah in loo xuso loo sheegaan rabnaa qaar ka mid ah ehelada marxuumiinta oo goobjoog ahaa ayaa iyaguna maxkamadda ka dalbaday cadaalad intayadan halkan fadhidaa hadda waxaanu nahay ehelada labada nin oo marxuumiinta ah oo la dilay ninna Oktoobar 15keedii 2022 ninna bishii saddexaad 11keedii 2023 annagu waxaanu degannahay gudoomiye iyo garsoorayaal gadiga Puntland alxamdulillaah waxaa mahadsan ciidanka danab iyo booliska dawladda galmudug oo gacanta ku soo dhigay eedeysanayaashii inta aanu raadinaynay aad baan ugu mahad celinaynaa waxa weeye annaga dacwadan iyo kiiskaani inay socoto noloma sheegin mana aanan ogeyn waxaanu codsanaynaa cadaalad baan codsanaynaa inaanu u helno dadka ehelada oo nala ka laayay waa iqiran yihiin nimankii laayay oo annaga laynay bay la soo taagan yihiin ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda qaybta 12aad ee galmudug gaashaanle dhexe Cabdullaahi Abuukar Xasan garyaqaan Shadoor ayaa soo xiray maxkamadda waxaana uu sheegay in maxkamaddu ay go'aan ka soo saari doonto dhageysiga la xiriira garmaqalka ku saabsan kiiskan halkaas ayuu ku ogyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta